gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa maanta magaalada Dooxa ee dalka Qatar heshiis kula saxiixday dhigiisa magaalada Dooxa. heshiiskan labada magaalo ayaa heshiis mataaneynaya oo noqonaya markii ugu horeysay oo taariikhda labada magaalo. heshiiskan mataaneynta ayaa waxa uu ka kooban yahay 10 qodob oo ay labada magaalo ay iska kaashan doonaan sida dib u dhiska magaalooyinka iyo isdhaafsiga aqoonta, xirfadaha, horumarinta iyo adeegyada bulshada oo aasaasiga u ah sida caafimaadka, nadaafadda iyo dhiirigelinta iyo magaalooyinka. mas'uuliyiinta howlwadeennada labada magaalo oo booqashooyin ku kala bixin doona magaalooyinka Muqdisho iyo Dooxa si looga wada shaqeeyo barnaamijka mid loogu horumarinayo labada magaalo. waxaa sidoo kale kamid ah heshiiskan in labada magaalo ay iska kaashan doonaan horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga, iyo sidoo kale in labada magaalo ay ka wada faa'iideystaan barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta oo ay qaban doonaan labadooda dawladood ee Soomaaliya iyo Qatar, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله heshiiska maantay aan wada saxiixnay duqa magaalada Dooxa iyo aniga oo ah duqa magaalada Muqdisho wuxuu ku saabsanaa horumarinta labada magaalo ayuu ku saabsanaa horumarinta labada magaalo oo ay ka mid tahay wadooyinka dhismahooda, qurxinta magaalada, isdhaafsiga tababarada shaqaalaha, booqashada mas'uuliyiinta Dooxa iyo Muqdisho iyo waxyaabo badan oo ka mid ah magaalooyinka horumarintooda.